ka samaysay weerarkani waxay muujinaysaa in kooxdan wax soo weerartay ay iiraaniyiin yihiin waxayna ujeeddadoodu tahay bay yidhaahdeen inay saamayn ku yeeshaan ra'yil caamka guud ee israa'iiliyiinta jebinta xogta saraakiisha ciidamada israa'il ayaa dib ugu soo celisay dhawaaqa dhegaha dadka reer israa'iil dagaalka saybariska ee taalabiib ay ka wado hawada dijitalka iyo cawaaqib xumada ka dhalan karta in la jabsado amniga xarunta militari ee israa'iil faylasha la jabsaday ee lagu daabacay shabakadda dark net iyo qaar ka midana la soo dhigay telegramka waxay ka kooban yihiin faahfaahinta guutada dagaalka ee alfol oo bannaanka la soo dhigay goobaha ay ku sugan yihiin iyo jadwalka tababarkooda kooxda jabsatay kombiyuutarada iyo macluumaadku waxay sidoo kale daabacday magacyada askarta loo magacaabay inay ku biiraan cutubyada dagaalka ee safka hore iyo xogo ay ka mid yihiin magacyada iyo ciwaanada boqolaal askari meelaha ay kala degan yihiin telefoonadooda gacanta iyo akoonnadooda iimeylka iyo sidoo kale xogta gaarka ah ee qaar ka mida ciidamada kaydka ah iyo shaqadooda iyo weliba darajooyinkooda ciidan sida laga soo xigtay mareegaha wargeyska iyo diiciin axranood faylalka la jabsaday waxaa ku jira tafaasiil ku saabsan kuwanaan dhallinyaro ah oo ka tirsan ciidamada iyo kuwa ka shaqeeya laamaha ammaanka jebintaa kadib waxay kooxdu soo bandhigtay xogo gaara oo xasaasiya oo la xidhiidha xaaladda maskaxeed iyo heerka bulsho ee askarta iyo sidoo kale macluumaad ku saabsan ragga dhallinyarada ee ka qayb qaadanaya mashruuca lagu dhiirigeliyo qoritaanka iyo adeegga ciidanka israa'iil iyadoo warbixinahaasoo dhanna la shaaciyey faafinta kooxdan cusub waxaa lagu gartaa farriimo xambaarsan ciwaanno aflagaada ah sida lagu sheegay xogta ay israa'iil ku baadhay arrintan farriimaha oo ay ugu caansan yihiin waannu sii wadaynaa dagaalka ilaa aannu muujinno dembiyadiinna qarsoon iyo sidoo kale waannu ku raacaynaa oo kula soconnaa meel walba oo aad joogto iyagoo ka hadlaya arrimaha wasiirka difaaca israa'il beni gentis ayaa kooxdaasi waxay qoreen waannu ognahay dhammaan go'aamadaada waxaannu duqayn doonnaa bartilmaameedkaaga maadaama aannu hayno warbixinahaaga sirta ah ee wasaaradda ciidanka iyo sidoo kale macluumaadka qorshayaasha howlgalkaaga khariiradaha macluumaadka ku saabsan goobaha ay ku sugan yihiin cutubiyada ciidamadaadu waxaannu daabici doonnaa macluumaadkan si aannu u ogeysiinno adduunka oo dhan master iyel alima oo ka faalooda arrimaha militariga iyo amniga kana tirsan kanaalka telefishinka israa'il ee kan ayaa waxa uu aaminsan yahay in jabsiga akoonnada askarta ama saraakiisha ciidamada israa'il ay khatar ku tahay amniga xarumaha militariga iyo ka guud ee dalka waxa uu sheegay in dhacdooyinka jabsiga iyo baadhashada xogaha qaar ka mida askarta iyo saraakiishu ay soo socdeen muddo ku dhow 3 sannadood alima waxa ay al-jasiira doddeed u sharaxday in la wado kormeer militari oo qarsoodiya oo ku saabsan faahfaahinta iyo baaxadda howlgallada noocana ee lagu bartilmaameedsanayo askarta iyo saraakiisha israa'iil qaarkood iyadoo ciidanka israa'iil ay isku dayayaan inay xoojiyaan wacyigelinta ciidamadooda si ay u xoojiyaan telefoonnada gacanta oo u ilaaliyaan isla markaana loo hubiyo isticmaalka internet ammaana iyadoo ka hadlaysay saamaynta ay yeelan karaan weerarada noocana ee dhowaanaha loo nisbeynayay budhcadda reer iiraan ayaa waxa ay tidhi tani waxa ay caddaynaysaa in ciidanka israa'iil aanay weli ku guulaysan inay tallaalaan xubnahooda oo ay ka hortagaan faragelinta xogta sirta laakiin taa beddelkeeda waxa ay ku guuldaraysteen inay soo rogaan xanibaado mamnuucaya in la daabaco macluumaadka amniga ama militariga ee ku jira internetka sida laga soo xigtay alima jebintan dhowaan dhacday waxay ka turjumaysaa dadaalka kooxaha ajnabiga ee iiraan taageerto sida xisbullah iyo xamaas ay ku doonayaan inay ku xakameeyaan telefoonnada gacanta iyo kombiyuutarada askarta israa'iil
isku day ciidamada Israa'iil ku doonayeen inay ku yareeyaan xisaabaadka askarta iyo saraakiisha marka ay isticmaalayaan internetka ayaa waxaa lagu sheegay in ciidanka Israa'iil ay damceen inay sameeyaan xaalad ka hortaga iyaga oo ciqaabaya askarta iyo saraakiisha lagu qabto inay daawanayaan shabakado keeni kara ama ay ka iman karaan waxyaabo virus oo sababi kara hadhowto in kombuyuutaradooda la